قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم سنة صابونها ماشي صارني ونوعيات استعمال شرتي شامبويا ذا كريمة ذا ماشي صارني ونوعيات استعمال شرتي everything ماشي يا لابولي وحكستو أو مسقشن إيا قلكن إيا الروم كان يالا وحا شيء يا وحيات استعمال شرتي وما حيبولي النتيجة ذات فهميسه حد قرنيسا قرنيسا والله عيد بقى يسوي الرسوي قورنطي انت نودن ان ليس لها معقول ما هو ميل لي دياريه ان تحد قرنيسا يعني ميad ku qancaysa roomkaasi inad by accidentun room wax walba min saabunta ilaa iyo talaagada ilaa iyo TV-ga ilaa iyo jariidada ilaa iyo kursiga ilaa miiska ilaa buugga ilaa waxa la akhrinayo dhami waxaagiyo sidoodii inuu noqdo ku qancimaysid waxaad ku qancaysaa buu yiraahd leedahay waa meel laysi diyaariyay haddaba markaan eegna buu leeyahay nolosha adduunka iyo universe-kan aynu ku noolay iyo ay sida bini aadamka ugu jaan go'an tahay wax kasta uu u baahan yaalo waxaanu leenahay buu yidhi waa kownun ucidda lana waa duni inaga laynoo sii diyaariyey waa duni cid garanaysa inaga baahiyaheenna markaynu bini aadam nahay baahiyahaynu leenahay oo dhan cid garanaysa ayaa jirta buu leeyahy wa ilaa marnaba suurtagal ma aha buu leeyahy inay dunidu u ekaato wixii aynu wax kasta ka rabnay mithaal ahaan waxay leeyihin dunida marka la eego maanta joogta anything mathalan dhulka waxay leeyihiin thicknesska dhulka qashra alardiya dhulka qoloftiisan sare haddii ay in yar bidcata aqdaam in yar foots yar hadday ka ballaadhan tahay intii ثاني أكسيد الكربون يوكسجين بيسجل نوجي لها بيلين كربون دايوكسيد يوكسجين دوري ده كركي دلقة مهلين هدي اللي بدأ لقوا هي أنا محي نالولي ما تشريسو وحيلين هودا دوشي النصارني إن ير هداي إنتن كردير تهي ودن ستيجة مركا وخفيفة سبيسكو إن ير وديرادو نيازكتها إن أستراليسكا يوحن صوت دادنا هي كركي كودا دعي لهاين dunida nolol kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygen-ku intuu yahay haday in yar ka badan tahay in helaac yaro bilig yiraahda dunidu way wada guban lahayd waxay tilmaamayaan cadceedu haday in yar ka soo dhawaato halkay maanta joogto waxweeyaan dunida waxa joogo dhamay way guban lahayd haday in yar ka fogaatana waxay leeyihiin dunida nolol kama jirteen yani halka ay joogto ayaa waxay tahay meeshii ugu fiicnayd ee nolol ka jiri lahayd dayaxaad arkaysa bay leeyihiin halku maanta joogo hadduu in yar ka durugsan yahay nolol kama jirteen bay tilmaamayaan hadduu in yar ka dhow yahayna tideska dhulka ka badda tideska ka kaca dunida dhammaanteed bay maanshayn lahaayeen ama waa qarqin lahaayeen wareegu dhulku wareegaya 24 saacadood intuu wareega hadduu in yar ka gaabiyo bay leeyihiin intuu yahay dunida badhna kuleyl bay u dhiman lahayd badhna qabow bay u dhiman lahayd dhulku waa tilted 20 degree 23 degree buu qalloocsan yahay hadduu in yar ka toosanaan lahaa bay leeyihiin dunida labada bowlunba roobku ku du'i lahaa inta dhaxana saxaaray noqon lahayd oo nolol kama jirteen everything bay leeyihiin dunida korkeeda saaran oo maanta yaala haddaad istiraahdo wax yar ka bedel waxa soo baxaysa bay leeyihiin in maxay ay u muuqanayso noloshu inaanay suurtagal ahayn walidaalka baa waxay leeyihiin dabayluhu noocay u dhacaan haday in yar ka gadisnaan lahayn roobku siduu do haduu in yar ka gadisnaan lahaa biyaha baddu haday in yar fuutisa kor uga qaadnaan lahaayeen biyaha baddu haday ka dhanaan yaraan lahaayeen biyaha baddu haday macaan noqon lahaayeen all this nolol ma jirteen taamacneedu waxa weeyaan bay leeyihiin dhulkan aynu ku nool lahay inuu yahay meel laynoo sii diyaariyo lagu talagalay bini aadam inuu iman karo jaadabiyada dhulku gravitational force-ka dhulku intuu yahay hadduu in yar ka durugsan yahay xayawaanaad yaryar baynu noqon lahayn quraanjada da'deedaynu leekaan lahayn ma korreen dhulkaa xoog inoo qaban lahaa hadduu in yar ka fudud yahay waa biibi lahayn qofkii dhulka kor uga kaca kuma soo noqdeen hawada iyo meelahaas ayuu iska qaban lahaa yacni noloshoo dhan waxay tilmaamayaan qaabkay maanta tahay haddii wax isbeddeloo yari uu jiro nolosha the four forces kay sheegaan electromagnetic wave electromagnetic force-ka
ama ka jaadabiyada ama strong nuclear force-ka ama weak nuclear force-ka waa constantes. That constantes haddii in yar laga bedelo bay leeyihin, there will be no life, nololi ma jirteen. wax kasta oo la soo qaado waxay leeyihiin haddii wax yar iska bedelaan. buuruhu haddii designka buuruhu ka gedisay caynka nololi ma jirteen, hadday ka weynaadaan hadday ka yaraadaan nololi ma jirteen. idan waxaa la tilmaamayaa wax kastoo noloshan korkeeda yaalla inuu ku jaan go-an yahay nolol bini aadam ilaahay ugu talagalay. ilaahayna wuxuu leeyahay qutila alinsaanu maa akfarah baa ilaahay yidhi. insaanka waa la naadalaya maxaa ka gaalnimo badan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin faidaa huwa khasiimun mubiin. bini aadamku miyaanu arag baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala inaanu ka abuuray min nutfa faidaa huwa khasiimun mubiin. waaba mid doodaya oo wax kasta ka soo horjeeda. sida awgeed ayuha alikhwa, masaladani waxa ay sheegaysaa uun iyadoo si kooban aan u tilmaamo, waxay sheegaysaa mabda'a kani waa mabda'a le noloshu in laynoo diyaariyo innaga laynagu qiyaasay. nolosheenna in lagu qiyaasay baa muuqata bay leeyihin. waxaa kugu filan inaad akhrido aayaatu taskhiir. waxa ay sheegeen oo dhan haddaynu qur-aan akhrino, qur-aanka inagaga filan, laakiin intayna qur-aanka akhrida ayaa iska yar. ilaahi subxaana wa tacaala ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في سورة اللقمان إلهي وحنا يميدان إنسان إذن كو سخيري عرئي الرلبة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمدي سنين إذن كو ضبولي إلهي سبحانه وتعالى مد موقطية مد قرصون مد فهم كرتانية مد فهم كرن نولشينا اللي يدين معيي. هدنا إلهي وحده ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومسألة التسخير في سورة نحل هداد أخرده أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. آيات كاسي هدينو أخرنا إلهي سبحانه وتعالى وحينو قوى الرمية وحقوا إنه معين السيي قرانكو وقضية تسخير إم مسوى حبان دين سخير يبا إلهي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، مسألة تنوحا كسو كوبي يا مركا إينا الدليل تهي إنا السدفاء مباي تشانس نولوشا نوردمي إنو قوة هقاكتين. waxaan uga gudbayaa daliilka saddexaad ee ay sheegtaan qolada tan atheistiska ah. waxay yidhahdaan kristanku wuxuu sheegaa ilaahay inuu dadka jeceliya kan jeceliya kan jeceliya waayo haddaa sharku uu dunida u joogaa. sharkan dhibtan dagaalada waxa kan maxaa ilaahay u ogolaaday? waxaa jira Epicurus waxay ka soo naqliyaan David Hume siduu boogiisa Dialogue Concerning Natural Religion uu ku qorayo wuxuu leeyahay Epicurus baa wuxuu yidhi is God willing to prevent evil but not able, then he is impotent. Is he able but not willing, then he is malevolent. Is he both able and willing, then once come evil. Is he neither able nor willing, then why call him God? ودليل الشر waxay yidhaahdaan wuxuu leeyahay ilaahay ma awoodaa sharka inuu joojiyo, miyuu doonayaa sharka inuu joojiyo oo waanu awoodi karaynin? idan wuxuu leeyahay waa powerless, waa daciif. waxaynu ilaah ugu sheegaynaa markaa is he able but not willing?
ilaahay miyuu awoodaa inuu shirka joojiyo laakiin waanu doonayna wuu inagu soo daayey then he is malviolent bay leeyihin ay evil minded haddaa waa khabiis bay leeyihin walciyaadu billah waxay leeyihin ilaahay is he both able and willing miyuu awoodaa waanu doonayaa inuu joojiyo haddaba xagguu shirku ka yima yidhahdeen isagoon dunidu wada sharka ah mise mana awoodo mana doonayo oo haddaa maxaynu ilaah ugu magacaabaynaa idan in every aspect aan shar u eegnaba iyagu leeyihiin waayaynu leenahay waa ilaah masaladani waxay ku salaysantahay laba masalo midi waxa weeyaan tasawurkay dunida ka haystaan baa qaldan quraanka iyo sunnada ma jirto ama islaamku ma odhanin dunidu waa kamaal oo meesha ugu fiican weeyaan ee bini aadamkana lama odhanin dhiman maysid xanuunsan maysid dhib arki maysid kan arki maysid lama odhan ilaahay wuxuu yidhi wanabluukum bishari walkhayri fitna ugu horeyn dunidu waa meel laysku itixaamayaa baa ilaahay yidhi shar iyo khayrbana waan idinku itixaamayaa idan waa nooc ka mida beberiska lagu dhiibaya imtixaanka asalku maaha inay noqoto meel fiican oo wada qurux badan inay noqoto asal maaha waxaa lagu yidhi waa lagu itixaamayaa waxaana lagu itixaamayaa dhib iyo dheef labadaba haddii xoolo lagu siiyey haddii nimco lagu siiyey haddii barwaaqo aad heshay haddaad nabad haddaad kan heshay waa imtixaan waxaa lagu eegayaa inta aad ku sabirto inta aad wanaag ku samayso inta aad khayrka khayr u adeegsato dhanka kalena waa lagugu itixaamayaa baa la yidhi shar baa kugu dhacaya dagaal baa imanaya kan baa imanaya waxaa la eegayaa inta aad iyadoo dhibi ku haysato shareecada raacaysid inta iimaankaagu uu gaadhayo inta aad dhowrsoon tahay inta aad rabbiga ku kalsoon tahay inta aad sabraysaa la eegaya idan tasawuru linsaani lidunya ay masaladani ku saabsan tahay marka horeba waxaad adigu adduunka u haysatay iyo suuradaad ka haysato waa mar labaad waxay yidhaahdaan wax la yidhaahdo shar maxdiyi ma jiro shareecada culamaa alcaqiida waa aragteen iyagoo tilmaamaya shar maxdiyi ma jiro shar maxdiyi ma jiro macnaheedu waa maxay waxa weeyaan sharku dhan buu khayr ka leeyahay kow alvan balantiga professorkan la yidhaahdee maraykan filosofkaas isagu wuxuu leeyahay sharku wuxuu u jiraa waa matter of freedom buu leeyahay freedomku waa maxay waa inaad waxaad doonto samayn karto soo maaha haddii lagu yidhaahdo one way quraad samayn kartaa wax xuma ma samayn kartid you didn't get the freedom buu leeyahay marka isagu wuxuu u sharxaa masalada gebigeedaba masalada waydan fahmin buu leeyahay waa xorriyadda insaanka ilaahay siiyey haddii meesha aan freedom jirin macnaheedu waxa weeyaan sharba ma jiro shar ma samayn kartid laakiin haddii lagu yidhi labadaba waad samayn kartaa waa masalati alxorriya buu leeyahay way ka ratibantaa isagoo aragtidiisa sharka gebigiisuba taasuu ka ratibmaa laakiin si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu leenahay khayrku waa alqaacida alcaama waa ruulka guud ama waa qaacidada guud ama waa asalka sharkuna waa istithnaa'aat waa exceptions waa waxyaabo yaryar oo laga reebay maxay tahay sharku waa istithnaa'aat waan tilmaamay sharku bikulli lwujuuhna shar maaha mithaal burkaanadu iyo zalaazishu waa dhib soo maaha earthquakes iyo volcanoes volcano halkan ka qaraxday dad bay laysay dhulgariir baa dhacay magaalo dhan baa duntay waddan dhan baa baaba'ay waa nooc min ashar ayuu dadku u arkaa socaynkaa maaha laakiin waxay culimmadu leeyihin maalan qolada saynisku waxayna leeyihin haddii aanay volcanoes iyo zalaazili jirteen dunida nololi kama jirteen is that possible haddaan volcano iyo earthquake jirin dunida nololi kama jirteen why kow waxay leeyihin waa litanfiisi daqd dhulka lubkiisa ama centerkiisa hoose waa kulayl aada buu u kululiyey sidaa awgeed wuxuu u baahan yahay tanfiis inuu helo meelo uu ka neefsado hadduu waayo it will explode bay leeyihin dhulka dhammaantii waa inuu qarxaa oo sidaa bahalladaasi cirka ka soo daadanayoo kale meelaha kale waynan ku daadanaynana
يعني haddii aan laga neefin bay leeyihiin kulaylka kan temperature kan tirada badan lee dhulka gudihiisa ku jira haddaan laga neefinin wuu qarxi lahaa bay leeyihiin hadduu qarxana hawadu kala raaci lahaa waa mar labaad waxay leeyihiin dhulka haddaanu neefsanaynin wuu baabi'i lahaa oo waayo waxay tilmaamayaan cadceedu ayuu dhulku ku wareegaa wareegaasi noocuu doonayaba ha ahaado يعني كي سيدا تنايم كوادي دينا وحسنا شيئا لو لبيه وحدوني هذا دول قاعد عيد بكوريجا gravitational force كي ساهية وهذا صعدان عدد وحيلين مالن كسته وحكود دو محل هذا in almost 4.6 million tons per second energy استعماشة ويصادرتها عالم كوكلا درتها تام معناه هذا محي وزن قاعد ينقص ويرانيا although iyana dust kale iyo wax kale oo malaayiin min tan inay ku dhacayaan laakiin wasnigeedu uu yaraanaya haddii wasnigeedu yaraado maxaa ku dhacaya gravity-ga dhulku yani gravitational force-kiisku haya wuu isbedelay ilaa kan mass-kiisii baa isbedelay haddii kan mass-kiisu isbedelo force-ga labada dhexdooduna waa inuu isbedelaa laba midun waa inuu noqdaa inuu dhulka la sii daayo uu cararo wahayn kari weyda cadceedu ama inay soo jeedato si aanu taasi u dhicin bay leeyihiin oo dhulku sidiisii u ahaado dhulkana waa in gudihiisa waxa ku jira badh la neefiyaa oo ay noqdaan hawooyin gases xagga sare qabanaya gases ka baxaya waa inay noqdaan idan waa inqaas ama waa decreasing lagu sameynaya maxay weight-ku lahaa volume-ku lahaa ama density-gu lahaa dhulku iyo la yaraynaya weeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan haddii aanu jirin baraakiinta tan iyo zalaasiisana haddaanay jirin dhulka nololi kama jirteed bay leeyihin waa mar saddexaad waxay leeyihiin biyahaynu haysanno iminka theorigooda u dambeeyey waxa weeyaan dhulka gudihiisa ka soo baxeen haddaan baraakintani jirin vulkaanigani markuu dhacay ayaa badahan iyo waxaan oo dhammi samaysmeen lowlaa haadihi alvulkaano may jireen bay leeyihiin oceaniskan aynu arkaynaa waxay iminkayna leeyihiin dhulku markuu qarxo markuu waxaan soo daadiyo wuxuu soo daayaa minerals tiro badan oo bini aadamku u baahan yahay waxay kaloo leeyihiin dhulku markuu sida tan u qarxo turbal khisba fertile soilku waxyaabaha ugu badan ee lagu isticmaalaa dhulka xagga hoose ka soo tuurabaya waa minerals dhirta iyo wax oo dhan ay ku baxayaan baa ka soo baxa gudihiisa ka yimaada waxay iyo vulkaanaga kani dhulku waa inala buubi lahaa haddii aanay maxay buuruhu samaysmin yani dhulka gudihiisu waa cajiin lubka hoosena waa dhagax cajiinka kan qolofta sare way dhaqdhaqaaqi lahayd inay dhaqdhaqaaqda maxaa u diidaya buurtu waa sida qotinka oo kale waa qori la geliyey oo cajiinka la dhex geliyey xaggan kaga jiro xaggan kaga jiro xaggan kaga jiro si aanay u samaynin maxay shaking zalaasishu mabay joogsadeen ama dhulku u gilgilan lahaa wuu ina daadin lahaa bay leeyihiin lowlaa aanay baraakiintu jirin oo burkaanaani muxuu sameeyaa wuxuu sameeyaa dee jibaalka buuruhu waxay ka samaysmaan maxay vulkaano dhacday marka aad eegto waxa ay sheegayaane faa'iido ku jirta dhankan khasaare wuu ku jira oo vulkaana markuu dhaco dad buu layn earthquake markuu dhaco magaaluu baabi'in waxbuu baabi'in laakiin ma wada aha share masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu dad yar oo istisnaa buu shar ku yahay laakiin caam ahaan nolosha wuxuu u yahay maxay faa'iida ama waxtar buu u yihi sidaa awgeed ba waxay tilmaamayaan sharku dhan walba sharka ma aha dhan kale waa jundun min jundillaahi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay ku ciqaabo qaar dembi sameeya ama wax ka sameeya waa lagu ciqaabaa markaan soo duuduubo biyo kulul buu soo saaraa kan buu soo saaraa wax badan bay sheegayaan laakiin waxaasoo dhan markaynu ka nimaado maalan maradku xanuunku waa dhib bini aadamka ku dhaca waa imtixaan la imtixaamayo dhan kale waa vaccination xanuunada inta u badan ee xasaanay qofka bini aadamka u sameeyaa mar dambe xanuunkaasi inaanu dib ugu dhicin bay u badan tahay idan weji marka laga eego waa dhib weji kale marka laga eego faa'iiduu yeelanaya maalan dagaalada dunida ka dhaca waxay leeyihin dagaalada dunida ka dhacay min bacdi haabaa ayuu yimi axlaaftan waaweyn iyo isku dayadan waaweyn ee la isku dayo wadanadu inay midoobaan ama takatulaadkan ama si kale haddaynu eegno waxay idhaahdaan mar kastoo dagaal ama dhibi dunida ka dhacday waa mar kastoo bini aadamka aqoontiisu horumartay
taa macnaheedu waxa weeyaan any inventioniska waaweyn ee dunida la sheegay xilli dagaal buu soo baxay raadaar dayuurad waxa la sheegayo dhan inta ugu badan leh marka nafta la isugu kaa keenaa baad tijaabinaysaa sidii waxa kanaad isaga difaaci lahayd markaasaa dagaalkii labaad ee dunida sababay in raadaar la sameeyo isagaa sababay raadaarka si loo sameeyo transistors in la keeno transistorska markii la keenayna waxan baa ka dhashay kombiyuutaradan iyo digdigtan iyo waxan oo dhan yani dagaalku cidhiidhigu bini aadamka geliya waxay keentay inuu bini aadamku xog iyo xoolaba iyo caqliba geliyo inuu inventions inuu wax soo saaro saa daraaddeed waxay yidhaahdaan alquwa nawawiya dagaal baa keenay quwa nawawigu dhib uu keeno magaalooyin baa lagu qarxiyey laakiin mise kaloo faa'iida buu keenay light baa laga dhalaya kan baa laga dhalaya waxan baa lagu sameeyaa positive tiro badan oo dhanka kale ah buu leeyahay waxaan tayaaraat nafaatha ah oo dhan cod ka dheereeya caynkan u dheereeya oo dhan waxa sababay dagaal baa sababay in la helo dawladaanu madfacu gaadhayn ama kari gaadhaynin baa keensatay sabab u noqotay in satellite-yadan iyo waxaan cirka loo diray iyo telecommunicationadan iyo waxaanaad waddo dhan inaad dhegaysato dagaalka cidhiidhigiisiibaa waxay keeneen inuu ka dhasho waxa kane dagaal iyo cabsida bini aadamku kala qabaa waxay keentay waxanoo satellite iyo waxanoo internet iyo waxanoo telecommunication aad isticmaasho in la isbasaaso oo dunida sare la wada tago oo loo kala dheereeyo waxa keenay colaad rag isku hayay maraykan iyo raashiya beritamay colaadii waxay keensatay kana gantaa dilay ka kala diray telecommunication baa la diray kan baa la diray basaasnimaa la diray waxan baa la diray waxoo dhan dagaal baa u sabab ahaa idan waxay yidhaahdaan dagaalku waa tadmiir laakiin taqadumku bay yidhaahdaan intiisa badan ee cidhiidhiga bini aadamku markuu galu yimaada xataa dawooyinka waaweyn bay yidhahdaan bensalin iyo waxa kan amraad xoogani waqti ay dhacday ayuu bini aadamku si isu mashquulinaya wuxuu soo saaray inuu helo antibioticska kanuu waxan kaga hortegayo lowlaa aanu kana heli lahayn muu sameeyeen bay leeyihin idan waxay leeyihin sharku dhan walba sharka ma aha walidalik baa imaam alghazali wuxuu yidhaahdaa naqsu lkowni caynu jamaalihi walow istaqaama alqawsu lama ramaa bay yidhahdaa universeku inuu nuqsaan leeyahay waa quruxdiisa baabuu leeyahay hadduu toosnaan lahaa qaansaduba hadday toosantay leebka ma ganta bay yidhahdaan qaansada dee bahalka laga gamaa waa soo qalloocaya hadduu straight ahaan lahaa bay leeyihin leeba kama dhicin waxaa la yidhahdaa dhibtu bini aadamka laftiisay faa'iido u leedahay waayo waxay rabaysaa bini aadamka cala aljildi bay ku rabaysaa adkaysiga waxay bini aadamka ku rabaysaa maxay macdan rijaal bay soo saartaa mashkilaadka bini aadamka soo kala saara soomaalidu waxay dhahdaan inta nabadi joogtaan ninba laba nin leegiyey laakiin dhibta iyo mashkiladu markay timaadaan raganimada bini aadamku soo baxdaa bini aadamka iyo siduu u kala far fiican yahay ama u kala caqli badan yahay ama u kala waxtarsan yahay baa soo baxa waa kii abu tamiim kii gabyayay wuxuu yidhi lowla almashaqatu saada annaasu kullihimu aljuudu yafqaru waliqdaamu qitaalu haddii aan dhibtu jirin buu leeyahy ninkan gabyaaga dadkuba madax bay soo wada bixi lahaayeen laakiin waxbixintu qofka way faqriyaysiisaa laakiin haddana sakhaagu waa wax magac iyo maamuuska keena dagaalka inaad jari noqoto horu martaa geeri bay keentaa laakiin waa waxa magac iyo maamuuska keena buu ku tilmaamaya waxaan uga jeednaa nolosha kow shar maxdiya kama jiro wax dhan walba shar ka ahi ma jiro ee waxa wejiyada ka mid ah evil uu ka muuqanayo dhan badan oo kale buu ka yahay maxay ayuu khayr ka yahay ثاني الأمر وحين لا نهي وحانو قف كان شركة كورما يا فهمين دونيدا دمان تتبوحي الله أبو ري أو ما لسكو اتحامين النقطة إذا ما حين لا نهي مسألة الشر نوعا ما وكجوابني مسألة دي إترنتي قد أنا وكجوابني مسألة الصدفة دي يو تايم كدارين وأوردر يبلان كينا ينوين كجوابني أدلش أفر أو كلنا وينو تلمامني دليل كقولة ينو هذا ودليل كأنطولة شيء هذا دليل الوجود ودليل فلسفي أيضا وحبضا وغسيبانين ودليل شيء واحد شروع أوردن صدح من مدويان إن لا يدا واحد سوى مستحيل الوجود ما تشري كره ين لا يدا ممكن الوجود وبوسيبل إنه تشري ين أنو تشرين ين لا يدا واجب الوجود إنه تشري وقصد كون كان مركي نوفير سنة بيلين ومحي وممكن الوجود إنه تشري أنا وصورتقال إنه تشري أنا وصورتقال إذا ما حنا رجعنا إنه تشرو مر هدوم ممكن هي سؤال شباب إيمان سايا إمكانك
yaa min alcadam ka keenay yaa sameeyey marka kii hore uu ku dhadhow yahay aragti ahaan laakiin philosophically si yar ay u kala saaraan baa jira reer galbeedkana nimanka ka warrama waxaa ka mid ah Gödel Kurt Gödel waa professor of logic and mathematics professoradii ugu caansanaa waa Albert Einstein saaxiibkii ay isku meelahaasi ka wada yimaadeen markii dambena qoladii Mareykanka joogtay isaga ale isaguna theory nooca ku dhadhow oo ontological argument la yiraahdo waa akhri kartaa af Ingiriis ku qoran waxaan ku soo koobaya marka nolosha tan iyo jiritaanku tafsiir kale ama macno kale looma hayo ilaa in la yiraahdo ilaah baa abuuray cidda abuurtayna waa inay sifaat yeelataa sifaadka uu leeyahayna waxaynu ka dhex fahmi karnaa waxaan aynu hayno waa inaanu iyada la nooc noqon materialka iyo waxaan ka samaysantahay waa inaanu ahaanin waynu ka gedisnaadaa waa inuu khibrad cilmi waxyaabihi kale la tilmaamayo dhan waynu yeeshaa waxaan ku soo koobaya markaasi aan asiladiina waqti u siiyo shanta argument haddii aad u baahantiin lilistizaada ziyaada inaa akhrii kartaan horta netku wuu buuxaa ashrita ciidda ka badan luqa ingiliisiya iyo luqa carabiyaba aad u tiro badan oo xawla lilxaad atheist ka warramaysa waa ku jira buugaag hadday noqoto kuwii hore muslimiintii hore qoreen iyo kuwa dambaba kuway qoreenna waa badan yihiin مثلا معاصرينتا عباس عقاد كتاب الله لا يدعو لها حسن هويدا التوحيد بوليه هي محل هذا سعيد حوا الله جل جلاله بوليه محانكو هذا دكتور عمر شريف أفر بوليه الحاد كاكا والرمية مد خرافة للحاد لا يدعو مد وهم للحاد لا يدعو مد سيروا في الأرض لا يدعو هي رحلة العقل مد لا يدعو أفرت بوكبا the same ideology ayuu kaga waramaya hadday noqoto kahanatu lilxaad mid baa qoray aalatu lmuwaxidiin liraddi cala almulxidiin waa kitaab kale hadday noqoto kuwa af ingiriisiga ku qoran Chris Morrison boogiisaasi maxaa la yidhahaa man does not stand alone waa ka mid odayga kan maxaa la yidhahdaa Dr. Linux buugaagtiisa ka mid ah Alvan Balantiga buugaagtiisa ka mid ah Gerald Schroeder keenu sheegaynay yahuudiga ahaa 3-4 buug buu leeyahay nooca ka mid ah buu leeyahay yacni labada dhanba buugsku aad bay u tiro badan yihiin qur-aanka haddaad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtana ideologiga laga warramayo oo dhan waa laga istinbaadi karaa waxa la xagga lagu tilmaamay oo dhan dhammaantood waa laga warrami karaa درسك أنت سأنكو جبينيا صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال الدور هر اللي يودي أشرو أنا كجواب مثلا قارنا حد إلا لين قارنا إلا هاي نبأوحي ويدينا يي قف كملحد كإلهي كقالوا بي كنت نصنون بقالة هاي محا آخره كنت نون له عذابي ويا سجى عذاب كله قوارنا يا بس كفلسفات كما إلهنا لو فهمي سيدي ده بقى waxaa la yidhahdaa ciqaabku ma waktiga aad gashay intuu leekaabaa lagu xadeeyaa mise dembigu intuu leegyaa lagu xadeeyaa maalan wadanadan ama reer galbeed ha noqdaan ama wadanada kale maalan waxaa jira dembi la yidhahdaa alkhiyaana alcudma qofku waddanku khiyaameeyey waxaa laga yaabaa dembigaasi sanad inuu galay ma odhanaynaa sanad buu galaye dee isagana sanad ha la ciqaabo sanad ha la xidho maya wadanada inta ugu badan waa dil khiyaana alcudma qofku hadduu sameeyo waa dil kuwa aan dilku agtooda ka jirinna waa life sentence maxaynu odhan weynay qofkani 2 sannadood unbuu khiyaanadan wadow basaasa ama 2 sannadood unbuu waddanka khiyaameeyey xaq wuxuu leeyahay in laba la xidho yacni sanawaadka ama waqtiga aad dembiga ku jirtay maaha waxa la eegaa waxa la eegaa waxa weeyaan dembigan inta uu leegiyo weynidiisu uu leeg tahay maalan gaalnimada ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay hal dembi ma dhaafayo
waxa kale dembiye bini aadamku galo waana dhaafi karaa waana kugu ciqaabi karaa hal dambi cidnaba kama aqbali doona baa ilaahay iminka inoo wada sheegay qofnaba lagama aqbalayo qof kasta oo risaaladu soo gaadhay oo nabi maxamed inuu nabi yahay fahmay oo quraankaasi soo gaadhay marnaba laga aqbali maayo halka dambi hadduu sameeyo halka dambi muxuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay anaa ku abuuray dunidaad ku nooshayna anaa leh anaa ku arsaaqa inaad waxayga cunto oo ku noolaato oo ku abuuray oo ku nimcaysato oo haddana waxaan ku idhin jas waxaad tidhaahdaa ilaahay oo thanks intaa un dheh laa ilaaha illa allah wa thankska alle just that word waxaad tidhaahdaa laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah ilaah waad ku maadsanta waxaan qirayaa si dhaba waxaan u qirayaa inaad ilaah tahay intaa un dheh baa lagu yidhi haddaad iminkaba taa diidda baa ilaahay yidhi waxaan ku cadaabayaa forever haddaad taa diiddo cadaabaad ku waaraysaa taa haddaad yeesho waxa kale oo dhamma aad samaysaa inaan kaa wada cafiyana waa la arkaa time ka mid oo noloshana in lagu cadaabo dabeetana lagu soo saarana waa la arkaa idan waa qaanuun yaalla oo rabbi dejiyey oo uu leeyahay saasaan kugula dhaqmaya ma laha markaa masanad baad ilaahay ka gaalowdo walow 1 second gaalow haddaad 1 second intaad gaalowdo ku dhimato shartiguna waa inaad ku dhimato buu ku yidhi adigoo sidaa iga rumaysan haddaad intaad dunida joogto jaanis baan ku siinaya aad ka soo noqoto gaalnimada waa ka tegi lahaa suraya aniguna intaad dunida ku nooshahay haddaad dib uga noqoto waad laxadaadkaad dhimanaysa aad iqirto waa kaa aqbalayaa baa ilaahay leeyahy amaa haddaad ii timaado adoo weli indha caddayntaa qaba rumaysan inaanan jirin ama rumaysan aniga inaan thanks laygu odhanay cid kale in thanks la yidhaahdo cadaabkaad ku waaraysaa baa ilaahay yidhi idan uma baahna waay kale ma jirto walaa yusalu camaa yafcal ilaahna isagaa dunida qofku dhulka uu leeyahay isagaa qaanuunka u dejiya waay aad u dejisay lama yidhaahdo isagaa leh rabbi isagaa tan leh isagaana maamula qaanuunkaana isagaa u dejiyey there's no way qofna wixiisa laguma yidhaahdo waay isagaa leh adigana ku keenay kugu nooleeyey ku dherigoo cunku yidhi haddaad diiddo inaad tidhaahdo ilaah waad mahadsantayna naartan geynaya baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala that's all بسم الله الرحمن الرحيم إن وقتي صلاة ونوصل دوادي إن دور سؤالات إن شاء الله تعالى شيخ وديننا أنت وقته ينصهم إن شاء الله تعالى سؤال شنو شيخ واحد قرنت فكرنسي English how can we define or pinpoint atheism in today's society for example practically how can we recognize in the education system in the European laws and in the media جزاك الله خير يعني سنكون وانكرنا يعني horta dadka inaad qodqodo adiga xilku saaran maaha war aduu ma etis baa tahay mise etis ma tiid adiga xilka ku saaran waxa weeyaan dadka inaad tidhahdo war laa ilaaha illa allah ilaahay rumeeya inaad adigu risaaladaada soo bandhigto hadduu isagu risaalada diiday wuxuu ku diiday inaad markaa kala niqaashto adiga xilka ku saaran waxa weeyaan inaad diin soo bandhigto waa tidhahda ilaahay rumee rasuulkiisana rumee hadduu ku yidhahda ilaah ma jiro markaa waa point laga wada hadli karo hadduu ku yidhahda ilaahay waan rumaysanay laakiin rasuulku ma jiro waa point kale oo laga wada hadli karo laakiin dadka inaynu qodqodnaa wax weyn maaha markaynu eegno educationka iyo iclaamka iyo waxa kani waxay u badan yihiin secularku hadduu secular xaqiiqiya ahaan lahaa waxay ahayd inuu diin ka baxsanaado oo positive iyo negative toona aanu ka sheegin laakiin secularkii dad atheistaba intay afduubeen waxay ka dhigeen inuu noqdo maxay atheistku inuu secular la macneeyey idan western society education-koodu wuxuu ku salaysan yahay secular ideology macnaheedu waxa weeyaan diimaha laga saaro Yurub kole iyadu aad bay ugu fogaatay secularnimada laakiin Mareykanka oo kale dadka diimaha rumaysan way ka xoog badan yihiin qolada secularka baan oran karaa in badan oo kamid ah walidalik ayaa iyaga doodo badani ka jiraan Mareykanku uu ka dood badan yahay wadanada tan doodaad arkaysaa lagu doodayo la leeyahay mesela mid baa wuxuu leeyahay waxaan aad dhigtaan waa diin
waayo waxaydan proof u haynin baa dhigaysaan dabeetana dadka rumeeyaa leedin aniga kaygana haddaan ku idhahdo christianityga dhigna waxaad odhanaysaa diinta ha laga daayo kaagii diintaadii baad science unu bixisay buu leeyahay ama kana ha la dhigo ama adiguna wixii aan empirical science ahayn meesha ka saar buu leeyahay waa laba diimood ee diintaada diin la-aanta aanaadna xag ku hayso anatayda kristankaan xagga ku haysanaya wixii empirical science aan dhigno laakiin inaad tidhaahdo taaduna waa science kaaguna waa religion waa just adigu names aad bixisay buu leeyahay xaqiiqada kama warramayso marka dee dunida secular bay maanta u badantay laakiin waxaan ogahay uun inuu tadayunku dib u soo noqday oo doodaha ugu badani maanta jaamacaadka iyo professorska dhexdooda ay taagan yihiin yacni kahanat ilcilmi baa hadda madaxa iskula jirta oo doodu dhexdooda ay taagantahay maalan qoladan leh discovery institute-ka website-kooda waxay leeyihin meel la yidhaahdo miyaad rumaysan tahay in natural selection designkan dunida ay u taaliyo waxaan oo dhan inay samayn karto waxaa xagga hoose ku qoran liiskaa saxeex haddii aad tahay weliba waa inaad noqoto PhD holder iyo wixii ka sarreeya akthar min 700 oo professor baa saxeexay ma aha wadaado iyo kama warramayo waa aqoon-yahanaadkii jaamacadka oo ishaya iyagaa labada fikradoodba hadda qora darwinism iyaga qora qaybo kaloo ka mid ah baa waxay qoraan maxay intelligent design waxay yidhaahdaan intelligent designkeenu ka warramayno qura maaha iyagu waxay leeyihin in every aspect of the science design baanu ka aragnaa annagu kama warramayno yaa abuuray laakiin waxa kani sidfo kuma imaan baanu taaganay bay leeyihin qaarkood diinba ma haystaan laakiin waxay leeyihiin warkan aan natural selectionkani waxaana sheegaysaa ma wax sax ahayn waxaan uga jeedaa marka dunidu maanta in badan oo ka mid reer galbeedku dhexdoodu dooda aad u tiro badan baa jira jaamacaad ka jira maalan darwinism akthar min 200 oo doodood in ka badan baa maraykan oo qura lagu galay oo jaamacaadka laga galay ma aha suuqa wax laga galay cidda doodaysana ay ahaayeen professoradii iyo PhD holderskii jaamacaadka ma aha dad dabadda ka yimi waa intellectual people-ka ama educated people-ka weeyaan dadkan doodaya ee doodaha kan leh anigu idinma odhanayo qoladan baa guulaysatay ama caynkan laakiin waxay leeyihiin mainstreamku xagga secularku u badna laakiin hadda dooda kale soo xoogaysatay oo waa la isrifayaa waxaanan arkayaa inay qolada tani qayladu maantaba ay bilaabeen oo waxaanay hadda TV ku carar jaraa'id ku carar iclaanaad samee waxa kan waa bashbashta waxa ka yeedhsiinaya waxa weeyaan godkoodii baa loogu soo galay muran badani ka jira wallahu aclam su-aasha ku xigta sheekh qofkani wuxuu weydiinaya wuxuu leeyahay cilmiga sayniska ma lagu tilmaami karaa aayatullahi alkowniya inuu ka mid yahay maxaa saynisase maxaan saynis ahayn marka hore waa su-aal ay aqoon-yahanada dhexdooda isku hayaan haddaad tidhaahdo saynisku waa inta empiricalka ah empirical evidence wixii wata laab la geeyey ee la caddeeyey kaa dadku iskuma khilaafaan intiisa badan kala garan maysid kaa inuu yuhuudiye qofka qoray inuu christian iyo inuu muslim iyo inuu bagan iyo inuu ma kala garanaysid waayo it's empirical waa tajriba maadiyoo la sameeyey ama waxaa aaraada iyo ra'yiga iyo tawjiihaadka ku saabsan waa lagu kala gedisan yihi marka wixii real ah saynisku waa inaad ogaato kownkani siduu u dhisan yahay wax kala yani qofku wuxuu ogaadaa waxaasi say u shaqaynayaan kadib buu dabeetana dabaqaa inuu ku shaqaysto oo dee technology u noqdo marka hore know-how-ga horeeya waayo waxaani sidan u yihiin baa la bartaa waayiga markaad barato ayaa know-how-ga lagu bilaabaa markaa in la apply gareeyo oo wuxuu noqdo shay nolosha faa'iido u leh ama medicine ha ahaada ama kana ha ahaadee idan dee saynisku maaha wax cusub oo dunida la cid wax cusub keentay ma jirto ee wax jiray baa la ogaaday siduu u shaqaynayay dabeetana waa la dabaqay marka waxaan aad arkaysa technology-gii waa practicalkii wixii la soo ogaaday marka kownka wax laga ogaadaa aayatullaahi alkownigu waa dee qofba inbuu ka ogaaday midii daahirkeeduu ogiyey midii deeply buu usii bartay wuu ogiyey waa takhasuskiisii ama waa sayniska qaybtuu baranayay
waa ogaanshiyo un markaa waxa kane intaad ogtahay bay hadba ku xidhantahay markaa waa uu noqon karaa aayaatullahi alkowniga wax lagu ogaaday weeyaan. su-aasha ku xigta qofkani wuxuu weydiinayaa haddii dadka atheiskina weydiiyaan ilaahay isaga yaa abuuray maxaa loogu jawaabaya? ilaah iyo yaa abuuray waa lama aan isqabanin. creation oo dhan meel baynu dhignay inuu bilaabmay baynu sheegnay, marka waxaynu isweydiinaynaa creationka yaa create gareeyey. haddaad tidhaahdo ciddii create gareysay yaa create gareeyey, dee ilaah maaha waa one step unba dib u socotay oo aad ka dhigtay un universe labaad inuu yahay. marka la leeyahay ilaah macnaheedu waxa weeyaan waxa kan in la abuuray waa la garta, cidda abuurtay sifaadkay yeelan kartaa baynu isweydiinaynaa. markaynu sifaadkaasi la garanay cidda sifaadka leh ilaah ah. walidaalika atheistiska realka ah dhabta ah siiba kuwa science yahanadii qayb badan oo kamid waxay leeyihiin haddaanu ogolaano dunida in la abuuray waanu aqbalaynaa inuu ilaah jiro. markaa ilaah waa wax la rumaysay inuu yahay super powerkii waxa kan abuuray, isaga yaa abuuray dee waaba khaaliqe. tusaale kale maalan haddaad buuggan halkaa ku ogeyd cabdinaasirna halkaa fadhiyey ood baxdo ood soo noqoto buuggan halkaa yaaliya cabdinaasir halkaa fadhiya, maxaad isweydiinaysaa? war buuggan yaa qaadaad odhanaysaa, waayo waxaad garanaysaa inaanu isagu soconayn in la qaado inay ahayd. cabdinaasir yaa qaaday ma odhanaysaa? maya, waxaad garanaysaa inay sifaadkiisa ka mid ahayd inuu socdo. markaynu leenahay waa ilaah macnaheedu waxa weeyaan eternitygii isagaa leh, isagaa azaliya. dunidaynu azalinimadii u diidnay, isagaa weligii jiray. wakti aanu jirin oo u baahan yahay in la abuura maba jirto. waa eternity baynu isku haynay, ma kownkaa leh mise ilaahaas bay sifaadkiisa ka mid tahay? ilaahay bay sifaadkiisa ka mid tahay inuu azali abadiya yahay, weligiina jiray, weligiina jiri doono. therefore the word yaa create gareeyay iyada qaldan. this word waa su-aal aan logic ahayn, waa su-aal aan sax ahayn. waqtigii salaadii baa daqiiqad baa ka laba daqiiqo. qofkan wuxuu soo qoray to what extent to what extent does Islam agree with the Big Bang theory? big bang theory rag diidani waa jiraan, laakiin culamada scienceska ka warrama muslimiinta ee aqoon-yahanka baabka ku saabsanay inta badan ma diidaan. markaan leenahay ma aha inay leeyihiin boqolkiiba boqol buu sax yahay, laakiin waxay leeyihiin ma ka hor imanayo nusuusta aanu hayno. nusuusta qur-aankii waxay sheegaysaa uma istawaa ila asamaa'i wahiya dukhaanun. big bangkuna wuxuu sheegayaa qaraxu markuu dhacay smoke baa samaysmay, smokegaa kadib baa laga sameeyey maxay galaxiska iyo dhulka iyo waxa kan. idan dukhaankii bay dukhaanku tilmaamayeen inuu dukhaan samaysmay, ilaahayna wuxuu noo sheegay inuu dukhaan yahay. big bangku wuxuu sheegayaa in qarax jiray, qur-aankuna wuxuu sheegayaa in la kala fujiyey cirka iyo dhulka. yani asamaawaat walarda waxay u dhigantaa waxaanaynu universe-ka nidhaahno. qur-aanku ereyga alkown la yidhaha ma isticmaalo, wuxuu isticmaalaa maxay alardu wasamaawaat. qur-aanku wuxuu sheegaya inay ahaayeen kaanataa ratqan fafataqnahuma, wax quroo isku dhajisan in ahaayeen oo la kala fujiyey. big bangkuna wuxuu ina leeyahay wax yaroo caynkana buu ahaayoo qarxay. idan aayadda qur-aana kama hor imanayo. big bangku wuxuu sheegay, idan waxaan uga jeedaa qur-aanka lama yidhaahdo big bangku waxa qur-aanku sheegayo kama hor imanaya bay leeyihin culammadu. qur-aanku wuxuu sheegaya in dunida mar la bilaabay. nabigu wuxuu leeyahay kaana allahu walam yakun macahu hayru, iyadoo aanu jirin. big bangkuna wuxuu leeyahay wakti baa jirta dunidaniba aanay jirin. idan aragtida tani waxay ku dhadhowday baynu leenahay tii diimuhu sheegayeen. ama tafaasiisha big bang theory siduu u qarxaya waxa ka dambeeya dee tafaasiil tiro badan oo lagu kala gedisan yahay. qolada physics-ka lafteed ku kala gedisantaa jira. tafaasiishaasi waa qadiya physics u baahan in la baadhbaadho, laakiin waxay leenahay duuduub ahaan nusuusta kama hor imanayo. wallahu aclam.